taliya odawaa yuusuf raage oo sheegay in dalku halis ku jiro xasan sheekhna uu xanuunsanayo dagaalkii ururka al-shabaab ay shacbiga ku qaadeenna uu fashil qarka u saaran yahay oo warbixin xasaasi oo idinkaga hayna xugum muhiima uu sii daayay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed odawaa yuusuf raage waxa uu sheegay in dagaalkii kacdoonka shacabka ka bilowday oo qarka u saaran yahay inuu fashilmo madaxweynihii xasan sheekh maxamuudna uu ku xanuunsanayo waddanka imaaraadka carabta oo la sheegay inuu isbitaal ku jiro ra-iisul wasaarihii uu dibadda iska wareegayo guddoomiyihii golaha shacabkana uu ku maqan yahay wadamada dibadda uu dalxiis aaday warbixintan waxaan idinkala wadaagi doonaa xogta muhiimka uu sii daayay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed odawaa yuusuf raage ee shaagareeya ku faafiya dunida meel walba ku toor muuqaalkan qaybta faallada nugula wadaaga aragtidiina waa hagaag aan ku bilaabo waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iidayso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada islaamka waana maxad kuu furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada qur-aanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida kutubta fiqiga axaadiista iyo tafsiirka waxaa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxayaa ataxiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iidayso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online taliya odawaa yuusuf raage oo warbaahinta la hadlay markii ugu horreysay ayaa ka hadlay dagaalka adag ee shacabka gobolka hiiraan ay kula jiraan ururka al-shabaab taliyaha ayaa sheegay in dalka uu marayo xaalad halisa isla markaana ay liidato rajada laga qabo in ururka al-shabaab laga xoreeyo dalka sababta ayuu ku tilmaamay inay tahay in mas-uuliyiinta ugu sarreeya dowladda federaalka soomaaliya aysan daacad ka ahayn dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab isagoo sheegay in 3 mas-uul ee dalka ugu sarreeyda dhammaantood ay dalxiis isaga jiraan oo ay wadamada dunida ku raaxaysanayaan xasan sheekh maxamuud ayaa ugu roon oo uu xanuunsanaya madaxweynuhu magaalada caasimadda oo imaaraadka carabta ee abuudubay isbitaal ayuu ku jiraa shacabku ma oga xanuunka madaxweynaha oo si qarsooday ayaa dalka looga qaaday ra-iisul wasaarihii wuxuu ku maqan yahay Itoobiya sidoo kale guddoomiyihii golaha shacabka waddanka ma joogo waa arrinta sida weyn nooca jabgelinaysa ayuu yiri taliya odawaa yuusuf raage oo arrintan ka hadlay isla markaana soo bandhigay rajaxumada soo fuusaartay kacdoonkii shacabka ee la doonay in ururka al-shabaab la isaga xoreeyo xogta muhiimka ah ee uu sii daayay taliya odawaa yuusuf raage ayaa noqotay mid la yaab ku ah shacabka soomaaliyeed oo ay ku tilmaameen inay tahay wax aan loo qaadan karin maanta oo bartamaha Oktoobar la joogo dagaalkii kama dambaysta noqon lahaa ee lagu ciribtirayay al-shabaab misna dadka Soomaaliyeed oo isku tashaday uu tusi lahaa adduun weynaha arrin ugub ah oo in waddan sabool oo cunaqabateyn hubay saaran tahay uu dagaal aan soo noqosho lahayn ku qaaday urur al-shabaab oo xubin weyn ka ah al-qaacida guushiisii lama gaarin dagaalkaasi waxa uu joogaa in calankiisa uu si geesinimo ah u sido gobolka hiiraan oo qor ah kuna taagan yahay wacdaka uu qaaday dadweynihiisa iyo dalkaba ballantii beelihii kale oo iyagana wacadka ku qaaday in taakulaynayaan kuna dayanayaan waxay maanta ka yihiin dagaalka daawadayaal dhaliil mudan afeeftii hiiraan ee ahayd inaan la adkeyn karin argagixisada haddii gobol qor ah oo aan taageero haysan oo dagaalka ka socdo guushana ceel ku dhacayso waa waxa dhacay kadib markii al-shabaab xoogeeda oo idil isugu geysay gobolka dowladda federaalka aad uga gaabisay hiiraan madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu iclaamiyey dagaal kadib markuu soo noqday
safarkiisii ugu horreeyay dalka Turkiga inay jirto howl wado qor ah oo lagu wajihi karo al-shabaab taasi oo ah qoriga caaradiisa laakiin hadda arrintaasi fashil ay ku dhowdahay sida ay tubinayaan qaar ka mid ah dadka xogogaalka ah sheegaray xogaan qaybta falan guriga wadaaga aragtida tan iyo koonfurta marnad geliyo waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiiska iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online